dalka Tunisia waxa uu ku yaalaa qaaradda Afrika cirifkeeda waqooyi waxaana dhinaca galbeed ka xiga waddanka Algeria sidoo kale koonfur galbeedna waxaa ka xiga isla waddanka Algeria dhinaca koonfur barina waxaa ka xiga dalka Libya sidoo kale dhinacyada waqooyi iyo barina waxaa ka xiga badda Mediterranean-ka Tunisia waxaa gumaysan jiray dalka Faransiiska intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida muddadii u dhaxaysay November 1924 ilaa May 1943 dalka Tunisia waxaa si ku meel gaar ah u qabsaday ciidankii Naasiyiinta Jarmalka Tunisia waxa ay madax bannaanideeda ka qaadatay dalka Faransiiska 20 Maarso 1956 madaxweynihii ugu horreeyay waddankaasi waxaa noqday Xabiib Bourguiba dalka Tunisia caasimadiisu waa magaalada la yiraahdo Tunis baaxadda dhuleed ee Tunisia ayaa lagu qiyaasaa 163,610 kiilomitir laba jibaaran tirakoob la sameeyay sanadii 2017 ayaa lagu ogaaday in dadka ku nool dalka Tunisia ay tiradoodu dhan tahay 11,434,994 qofood luqadda rasmiga ah ee dalka Tunisia waa luqadda Carabiga luqadaha kale ee laga isticmaalo dalkaasi waxaa ka mid ah Barbar luqadda Faransiiska waa luqadda loo adeegsado xagga maamulka ganacsiga iyo waxbarashada lacagta laga isticmaalo dalka Tunisia waxaa la yiraahdaa diinaar Tunisia waa dal muslim sunni ah waxayna xubin ka tahay ururada kala ah suuqyada bariga iyo koonfurta Afrika ururka jaamacadda Carabta ururka iskaashiga Islaamka midowga Afrika iyo ururka qaramada midoobay